wararka ka imaanaya gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo garab ka helaya ciidanka midowga Afrika AMISOM inay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Baardheer oo ka tirsan gobolka Gado sidoo kalena marin halbowla u ahayd dhaqdhaqaaqa Shabaab oo in muddo iyagu gacanta ku hayay maamulka gobolka Gado ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaana u xaqiijiyay jiritaanka warka sheegay in ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ay la wareegeen gacan ku haynta Baardheer oo in dhawaalahan ciidamadu ay wadeen isku day ay ku doonayaan in magaaladu ay kula wareegaan gudoomiye ku xigeenka gobolka Gado ee dawladda federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Barra Cabdi oo u waramay TV-ga Somali News ayaa u xaqiijiyay warkaasi ku aadan in ciidamada ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Baardheer waxa uu meesha ka saaray wararka sheegaya in ciidamada aanu wali si buuxda gacanta ugu dhigin magaalada oo wararka qaar ay sheegayaan in qaybo kamid ah magaalada ay ciidamadu joogaan al-shabaabna ay isaga baxeen sida maamulka gobolka Gado ay iyagu hadalka u dhigeen waxa uu xaqiijiyay in magaalada ay hayaan iyaguna ay haatan gacanta ku hayaan dhawaana ammaankeeda ay sugi doonaan marka hore ku soo dhawow gudoomiye ku xigeenka koobaad ee gobolka Gado mudane Cabdi Barra Cabdi TV-ga Somali News ee Muqdisho bal inoo xaqiiji jiritaanka wararka sheegaya in la wareegteen Baardheer وعندنا إدارة فدرالك دولة الصومالية الحين كان نصوم أو خمسة عدل لماذا بنا لولا هو سبب إدارة عطل هو حقيقي ليش نمين لما أكتب في المنطقة يعني قصتين كمان كذا الإنسان ما قبل هذا لا يفعل جدا كذا شيء زي المهرجة waayahay bal waxaan doonaynaa inaan la wadaagto qaabka aad u qabateen Baardheer in dhawaalahan hawlgalaad wadeen waa idin suuragali weysnaad qabsataan bal xogta in la wadaag si aad u qabsateen degmada هذا عالم غير سعودي هواء عاملين يفكوا سمايين كده لو على شو بالدباع وعصير حلوات يسمين معانا واخر الجبات ودوين الجبات جارين ان شاء الله وصلنا الدنيا وقول يا الله كده بارميره عارف إنه يفكر أميسوم يدور فرات waayahay waa maasantahay bal waxa doonaynaa al-shabaab waa la socotaa waa magaalo aad runtii ay ugu xooganaayeen gobolka Gado iyaga gacanta ku hayay ma dagaal baad uga saarteen mase iyaga isaga baxayo waa la wareegteen waxyaalaha بكل دولة جهات منطقة على الثلاث من داخلين الممارسة هي دور كتير وأنا بديده حمد مرة أركان مرة واحد هذين وعيالي هذا كوربات والسمين وأنا مش بحميات بهذا بهذا مرة كل الدنيا قاعدة تطلع وأيضا waayahay bal goobaha aad ka haysataan warbaahinada qaar waxa ay daabacayaan in qaybo kamid ah magaalada ay haysaan oo aan si buuxda wali gacantiina aysan u soo galin warkaas ma jiraa ما شيء برا ما صلاحية إذا صاروا قانون لا يعين لما نرجع نقول سعودين خصوصا الوضع هذه إيربوركا سلمي بدأوا بيوها بولدي الدفاع مقالة الجديد كيسون برا يصير كوبا كلا كيسا كوكي بيصير كل واحد هذا واحد يجي كل تبغى حري وهذا هذا وعوي ويسمعت أمان كذا وش الساعة كتب بيننا وعوي الله حوضنا وحيانا كل حشر الله صارنا سواء درتين وعنو شيء يزدوينها لما كحي وظروف كل شيء وحوصو كارت أي كل الله كان مقالنا سيدنا الجلية بوحده يقول وعيدنا ذي ومقلا سوية وشوي وها دافعها والله بيقول ده وقد نقول حكم سعيد تقول لك ودن بيسي أنا رجالك ودن بيا اللي قصته عيدروس محمود إيمان TV-ga Somali News Muqdisho